tan waa shaqo adag ay hayaan howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya iyagoo saf dheer u galay jayga oo loo diyaarinayo sidii loogu shubi lahaa qaybo ka mid ah deyrka hore madxafka qaranka. Mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa markay soo gaadheen madxafka qaranka waxa qaabilay howlwadeennada gacanta ku haya barnaamijka isxilqaan iyagoo u jeediyay dardaaran ku aadan habka iyo hanaanka ay ku shaqaynayaan. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Cali Gacal Gabo oo shaqaalaha wasaaraddiisa ku hogaaminaya shaqo maalmeedka isxilqaan ayaa sheegay in wasaaraddu markasta si weyn uga soo qayb gasho isxilqaan dalkaaga ku dhiso. wasaaradda iyadu waa wasaarad markasta diyaar u ah inay ka qayb gasho barnaamijkan. agaasime waxaan rabnaa inaan idinkaga mahad celinno shaqada aad haysaan oo qiimaha ugu fadhida qaranka Soomaaliyeed. barnaamijkan isxilqaamna hadda guulihiisu waa cad yihiin. waxaan rajaynaynaa inaan arki doonno goobihii lagu dhisay barnaamijka isxilqaam oo lagu shaqaynayo. agaasime Gacal ayaa carabka ku dhuftay in shaqaalaha wasaaradda gaadiidka duulista hawadu ay goobo badan oo wasaaraddu leedahay isxilqaan ku soo dhiseen mar hore haddana ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dhismaha dalka. annagu ka wasaarad ahaan xarumahayna waxaan ku dhisnay barnaamijka isxilqaam. waxaan ku dhisnay xaruntii wasaaradda gaadiidka hay'ad ajnabiya ama mid oo lokaal ah oo gudaha oo noo dhista ma jirto. ka wasaarad ahaan si volunteer aan ku dhisannay. xarunta oo diiwaangelinta gaadiidka si volunteer aan ku dhisannay. hadda dayactiraan ka wadnaa si volunteer aan ku dhisto waynaa. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa markasta soo galaya shaqada isxilqaan waxay ku soo galaan dardar xoog leh iyagoo muujinaya ama se kaga dhameynaya baaqi madaxda qaranka ee ku aadanaa in dalka lagu dhiso barnaamijka isxilqaan. Cabdirasaaq Xaj Saleebaan warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.